السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadli doonaa taariikhdii Mucaawiya bin Abi Sufyaan. Mucaawiya waxa uu ku dhashay magaalada Maka 5 sano ka hor soo bixidii Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxa uu islaamay sanadkii furashadii Maka isaga iyo aabihi. waxa uu nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee kala qayb galay dagaalkii Xunayn. waxa uu ka mid ahaa dadkii qori jiray waxyiga nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxa kaloo ka hadli doonaa siyaasaddii Mucaawiya. Mucaawiya waxa uu madaxtinimada qabtay iyada oo dadka islaamka ahi uu is-afgarawaa kala dhex jiro. markiiba waxa uu ku dhaqaaqay sidii uu wax ugu qaban lahaa is-afgarawaagaasi. wadahadalo kadib xasan bin cali bin abi daalib ayaa tanaasulay si uu joojiyo daadashada dhiigga dhalinyarada muslimiinta. Mucaawiya waxa uu bedelay nidaamka ahaa in la doorto ninkii madaxda dowladda islaamka noqon lahaa, wuxuuna ku bedelay in madaxtinimada la iska dhaxlo. dalalka ay diinta islaamka ku fitay waqtiyada Mucaawiya. markii Mucaawiya uu xilka qabtay sanadkii 41 hijriya, waxyaabihii uu qabtay intii uu boqorka ahaa waxaa ka mid ahaa sanadkii 43 hijriya waxa uu furtay wadanka Qaraj. sidoo kale wuxuu isla sanadkaasi furtay magaalada Burqa ee wadanka Suudaan. sanadkii 50 hijriya waxa uu furtay meesha la yiraahdo Quwastaan, wuxuuna ku sameeyay waliyal ahdi oo markii uu dhinto dhaxal sugu bedeli lahaa oo noqday wiilkiisa. waqtigii uu Mucaawiya islaamka madaxda ka ahaa aad iyo aad ayay u fitay dowladda islaamka. xagga bariga waxa ay gaartay badda la yiraahdo Persia, xagga koonfureedna waxa ay gaartay waqooyiga Afrika sida Liibiya, Morocco, Tunisia. Mucaawiya waxa uu xukunka haystay muddo 20 sano ah, wuxuuna ku dhintay Dimashq sanadkii 60 hijriya. waxa uu dhintay isagoo 78 jir ah. waxyaabaha lagu xasuusto oo uu soo kordhiyay waxaa ka mid ahaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee dowladda islaamka ka dhiga boqortooyo, inuu ahaa qofkii ugu horeeyay oo mu'adimiinta masaajidka lacagta siiya. markii uu dhintay Mucaawiya, wiilkiisa Yaziid ayuu u sii magacaabay inuu ugu dambeeyo oo uu dhaxlo boqortooyada dowladda islaamka. Yaziid markii uu xukunka qabsaday ayaa waxaa soo cusboonaaday is-afgaranwaa hor leh sidii waagii Cali iyo Mucaawiya oo kale ah.